Maxaa keena qofka aad jeceshahay inuu isbedelo marka uu ku ogaado in aad si dhab ah u jeceshahay? Sida la wada ogsoon yahay, ma jiro qof qalbi leh ee aan jecel dareemin, mana jiro lamaane isjecel ee aan iskhilaafaynin. Jacaylka waa farxad markay lamaanaha isfahansan yihiin, marna waa murugo markay lamaanaha khilaafkoodu badan yahay. Haddaba maxaa sababa in qofka aad jeceshahay isbedelo kadib markuu ogaado in aad si dhab ah u jeceshahay oo aadan ka maarmi karin, weliba isagoo in badan kaa ballan qaaday in uusan kaa fogaaneyn? Maxaa sababa in uu ballantaasi uu ka baxo ama uu bedelo sidii uu kuula dhaqmi jiray? Maxaase keena inuu fariimahaaga iska indhatiro ama markaad ka dalbatid inaad la kulantid muxuu marmarsiyo u raadsadaa oo uu la kulankaaga u diidaa? Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in qofkaasi si lama filaan ah uu isku bedelay, balse xaqiiqda waxay tahay inaad adiga sabab u tahay isbeddelka ku yimid jacaylkaaga. Waxaad isweydiinaysaa maxay tahay sababta? Haddaba sababtu waa adiga. Ma jeceshahay inaad ogaato? Haddii ay jawaabtaada haa tahay, waxaan kaaga soo samayn doonaa muuqaal, waxaana kuu sheegi doonaa sababaha aad adiga u tahay. Fadlan muuqaalkan sheer garee oo adreska taabo